waxaan ka dardaarmayaa dadka dhalinyarada ah ee siyaasadda xiiseeya ee aad uga hadla inaysan xadgudub hadhow waxyeeleeya inuusan hadda sii gelin inay hagaagsadaan weerahooda inay aragtidooda si fiican uga fiirsadaan inay dadka uga aqoonta roon wax ka dhageystaan waxaa hadda socda wax dalkana u fiican maaha puntlandna u fiican maaha waa isku dhex yaacday bahashi meel loo raaca hadda lama garanayo intii la yaqaano way dhaaftay meel oran jiray intii la yaqaano waa dhaaftay marka waa nasiib daro midnimo la rabo in cayl lagu keeno iyo hanjabaad oo midnimay noqonaysaa dad iscaayis oo dad isnacay maaha dadku waxay u baahan yihiin hadday midoobayaan dadka Soomaaliyeed mar walba mid weeyaba laba ma ah Soomaalidu ma laba Soomaalidu waa mid hadday Itoobiya ku jirtay hadday Kenya ku jirtay hadday Minnesota joogto Soomaali waa Soomaali ma macna kale lagu fasiri karaa waxa kale oo ka dhaxeeya waa nidaam iyaga ay sameysteen oo isku maamulaan nidaamyadaasna waxa la rabaa shuruucda iyo waxa ay sameysteen inay ka heshiyaan iskuna ixtiraamaan wax kale meesha yaala qofkii dastuurkii heshiiska lagu ahaa burburiyay ma midnimo ka sheekeyn karaa midnimo kama hadlo maxaa yeelay midnimadii la rabay in lagu wada joogo ayaa meesha laga saaray waxaynu u baahannahay si dhaba dadka Soomaaliyeed inay u garnaqsadaan oo u wada hadlaan haddii waa la isdilay waa la iscaayay waa la kala irdhoobay waxna waa la kala qaadi waayay soo saas ma xaqiiqadu ya intaas wax ma tarin maxaa wax taraya in la wada fariisto la wada hadlo la isu garaabo la is ixtiraamo wixii laga badin waayo lagu heshiiyo lagu dhaqmo siyaasadda inta inaga khusayso aan inii sheego waa intaas waxaa ina khuseeya shuruucda iyo dalka iyo dadka aan leedihiin ilaashada dadka inay wax nagala dhexeeyaan wanaag wax uga raadiya wixii abya ah oo idinka inay qalmin iska diida waxaas way ugu xun yihiin maceeba ya puntland waxay tiri dastuurka haddaa ku cayaartay annagu waa ka baxnay nidaamkaas waa ku sugaynaa wey dowladda hadda ka jirta dowladda federaalka ma aha dowlad ku dhaqanta sharcigii iyo qawaaniintii puntland qaybta ka helay lagu heshiiyey macnaheedu ma aha dowladda Soomaaliyeed inaan nacnay dowladda federaalka inaan nacnay dadka koonfurta jooga iyo magaalooyinka la jooga inaan nacnay waa dadkeena iyo waa ehelkeena laakiin maamulka hadda jooga waa maamul kala qaybin iyo isku dir iyo mashaakil ka shaqeynaya ee ma aha mid midnimo ka shaqeeya xaqiiqadu waa saas